Wardegdega daawadayaal Hotel SYL ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka socota israsaaseyn xoog leh oo u dhaxaysa kooxda Al-Shabaab iyo ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya iyo ilaalada hoteelka oo isku dhinaca sida wararkan ku helayno hoteelka SYL ayaa waxaana loo sheegayaa in jaranjarta hoteelka ay ka socoto rasaas xoog leh oo u dhaxaysa kooxda weerarka soo qaaday iyo ciidamada laamaha ammaanka dowladda balse daawadayaal intaana u gelin muuqaalka oo faahfaahsan halka aad nagala socotaan muuqaalkan aad ka dhageysanaysaan waa Masaal Media fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe saaro calaamada gambalelkana ha hilmaamin si aad ula socoto muuqaalada iyo barnaamijyada aan baahino oo noqoto daawadaha ugu horeeya ee dhageysta barnaamijyadeena sida aad warka ku maqlayseen daawadayaal hoteelka SYL ee magaalada Muqdisho waxaa hadda ka socda israsaaseyn u dhaxaysa kooxaha argixisada Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo ilaalada hoteelka oo isku dhinaca waxaana nala sheegay ila ku sugan hoteelka oo la xiriirnay in hoteelka gudaha ay u galeen kooxda weerarka soo qaaday isla markaana ay iska caabin xoog la kala kulmeen ilaalada hoteelka sidoo kale waxaana loo sheegay inay kooxda weerarka soo qaaday ay bombooyinka gacanta ama loo yaqaan F1 ay tuurayaan sidoo kalena ay la beegsanayaan ilaalada hoteelka dad ku sugan goobta ayaa sidoo kale la xiriirnay waxa muuqaalkan duubay ama qadka telefoonka la xiriirnay Cali Aadan Moomin oo ka tirsan Masaal Media waa kana muuqaalka waxaa qad kasta soo ugu jira qof kamid ah dadka hoteelka SYL ku jiray markii weerarku dhacayay waxaana uu yahay qof wariye ah oo muuqaal duubayay waxaanu inooga warramayaa bal waxa uu arkay ama og yahay iyo xaalku sidoo ahaa soo dhawo walaal waxay Cali Aadan oo ma santahay afaara markii laga soo baxay maqribka ayaan u soo aadnay inaanu ka qayb galno xaflad meesha ka dhacaysay oo aanu qayb ka noqono warbaahinta markaanu jadwalkiga marayno hoteelka SYL lagu baaro qalabyada laga galayo ayaa waxaanu soo goorad ka maqalnay dhinaca iyo rida madaxtooyada kadibna waxaa bilaabatay rasaas xigta oo labada dhinac isdhaafsanayaan dabcan waxaa lagu soo dhuftay derbiga hoteelka bambo iyo bambooyin lagu soo tuurayo kadibna noo soo baxna dhinaca iyo maxaa la yidhahdaa jirida beerta nabadda dhinaceeda laga aado SYL hotel ciidan ayaa nagu yimaadeen waxay nagu amreen in geli karin iyadoo ka ay socoto kadibna waxaan ku laabanay dhinaca iyo hoteelka SYL ayaa waxaa degan mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya sida xildhibaano wasiiro iyo shaqaalaha dowladda sidoo kale waxaa goobtan ku sugan safaaradaha ama maaragtay qunsulada ka socday safaaradaha wadamada shisheeye waa goob hotel oo si aad loo ilaaliyo wuxuu ka soo horjeedaa hoteelkani madaxtooyada Soomaaliya waa markii ugu horeysay ee hoteelkan la weeraro tan iyo intii xukuumadda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay talada wadanka qabatay kooxda weerarka soo qaaday ayaan la ogeyn sida ay u soo galeen goobta balse waxaana loo xaqiijiyay inay kooxdani 60 direyska ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya sidoo kale laamaha ammaanka ayaa hadda goobta gaaray sidoo kale waxaa jira jaranjarooyinka dadka lagu badbaadinayo oo daaqadaha hoteelka dadka looga dejinayo durbadiiba waxaa weerarkan sheegtay baraha taageera kooxda Al-Shabaab oo sheegtay inay weerarkan iyaga ka dambeeyeen dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale waxaa la sheegay inay wadooyinka soo gala aagaas oo dhan ay xiran yihiin balse waxaa la yaab ah sida ay kooxdani ugu suura gashay inay hoteelka gudaha u galaan isla markaana ay soo dhaafaan baraha control ee laga ilaaliyo magaalada Muqdisho iyo sidoo kale wadooyinka ku gadaaman xarunta madaxtooyada Soomaaliya oo si aad loo ilaaliyo dad ku sugan goobta ayaa sidoo kale waxay baraha Facebook ku soo qorayaan in ay kooxdani gudaha u gashay hoteelka isla markaana ay ku sugan yihiin hadda gudaha hoteelka isla markaana ay rasaas xoog leh kooxdu la beegsanayaan qof walba oo hoteelka ku sugan isla markaana waxa la leeyahay ciidamada federaalka Soomaaliya ayaa si aad ula tacaalaya kooxda weerarka soo qaaday sidoo kale lama oga sida arintani ku dambeyn doonto balse waxaan markasta idin la socodsiin doonaa wixii ka soo kordhay weerarkaasi ay kooxda Al-Shabaab ku qaaday hoteelka SYL ee magaalada Muqdisho ciidamada sida gaarka u tababaran ee dowladda federaalka Soomaaliya ee loo yaqaan Alpha Group iyo ciidamada danam ee commandoska Soomaaliya ayaa sidoo kale waxay suuragal tahay in arintani soo fargeliyaan hadii aan la soo afjarin saacadaha soo socda Al-Shabaab ayaa looga bartay inay saacadahan oo kale ay soo weeraraan hoteelada xilliyada habeenkii ah lama soo oga sida hawshan ku dambeyn doonto waxayna arintu u muuqataa in mid si daba dheeraanaysa maadaama waqtigu uu yahay mid habeena aan sal isku jeedin sidoo kalena kooxda ayaa sidoo kale waxay aad rasaas ula beegsanaysaa qof walba oo hoteelka ka
sugan ciidamada federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale goobta isku gadaamay lama oga sida arrinta ku dambeyn doonto xiisada ayaa ah mid si aad u kacsan xaaladda hoteelka iyo guud ahaan eriyada dhan ayaa waxa ku gadaaman ciidamada federaalka Soomaaliya ee qaybahooda kala duwan waxaan alla uga baryaynaa in dadka Soomaaliyeed ka badbaadiyo goobtan sidoo kalena insha Allah tacaala ciidamada waxay ku guuleysan doonaan inay ka gacan sareeyaan markasta kooxaha argagixisada ilaahay subxaanahu wa tacaala ka badbaadiyo dadka muslimiinta ah ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ka badbaadiyo dadka muslimiinta aan u duceyno walaalaheen inuu ilaahay ka badbaadiyo gacanta kuwa dhagar qabayaasha ah ee soo weeraray xilligii salaada ay ku jira ay soo weerareen ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u gargaaro dadka muslimiinta ah sidoo kale muuqaal kale oo ay duubtay shabakad ku sugan magaalada Muqdisho iyo warbaahinta Risaala ayaa halkan in kugu soo gudbi doona ilaahay aan u barina dadkaas inuu ilaahay ka badbaadiyo shartooda kooxda soo weerartay waa xilli salaad maqrib oo lagu jiray ay weerarka soo qaadeen dadka tukanay oo salaad ku jira qof walba oo qof muslimaad dila ilaahay subxaanahu wa tacaala ciqaab ayuu u diyaariyay oo nagu waajib inaan qof kasta oo Soomaaliya u duceeyo qofkaas muslimka ah meesha ku jira dadka walaalaheena ee dhiban ee cadowga soo weeraray ilaahay ha u gargaaro ilaahayna ka badbaadiyo ayakan ilaahay ha qabto oo ciidamadeena ilaahay ha ku suga gacantooda inay qabtaan iyagoo nool ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa kuwaas in laga qabto ayagoon qofna dilin ayagoon aan la dilin in ilaahay gacanta uu ku dhigo si tiirka loo soo taago loona helo kuwa soo abaabulo weerarkan sidoo kale walaalayaal channelka hadaad ku cusub tahay subscribe saar calaamada gambareelka furo sida ula socoto muuqaalada iyo barnaamijyada aan baahino hadda waxaan idin soo gudbi doonaa muuqaal kale oo ay duubeen dad ku sugan goobta dabaqyadaas agtoodana ah saaran waa ku mahadsantahay daawashada channelkeena subscribe saa walaalo calaamada gambareelkana ha iska hilmaamin si aad ula socoto muuqaalada aan baahino iyo barnaamijyadeena Yeah.